مسؤولين كترسن دولة فدرالك الصومالية أيام مقدشة وحا أي دولة ودنك إندونيسيا كلا وريجين ديق راشينا هاجر عبد القادر نور وكقيب قالي مناسبة دي لوريجين راشين كان أي وربحنتا نو دياريي dekada muqdisho ayaa maanta waxaa soo gaaray markab siday deeq gurmad ah oo ay dawladda Indonesia u talgashay qoysaska danta yar ay baaruhu saameeyeen waxayna deeqdaasi ka koobneed 1 tan oo bariis ah oo dhiganta 40 konteenar iyadoo ay goobjoog ahaayeen wasiirka wasaaradda gargaarka mas'uul ka socday dalka Indonesia xubno ka socday guddiga gurmadka abaaraha iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir axyudiin oo gudoomiye ka hay'adda Acti oo laga leeyahay dalka Indonesia ayaa sheegay in deeqdaani ay iska soo ururiyeen shacabka Indonesia si ay gurmad ugu dhigtaan buu yiri qoysaska Soomaaliyeed ay abaaruhu saameeyeen waxana uu deeqdaasi ku wareejiyay wasiirka gargaarka maareynta iyo musiibooyinka. Dua pekan ke depan masih akan ada pengiriman lagi beras dari Indonesia ke sini. Semoga bisa sampai ke tempat ini sebagaimana yang sekarang juga bisa tiba dalam waktu 1 bulan lebih 3 hari ya. Dan lebih lanjut saya akan serahkan secara resmi bantuan ini kepada Ibu Menteri yang terhormat. waxaa insha Allah labada isbuuc ee soo socotane waxa imaan doona ama soo bixi doona maraakiib kale oo mucaawina ugu talagalnay dadka Soomaaliyeed maantana si rasmi ah waxa ugu wareejinaynaa mucaawinadan maama Maryam wasiiradda gargaarka Dr. Samarin Qaasim wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka oo markii deeqdaasi ay kala wareegtay hay'adaasi waxa iyaduna ay ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha si ay u gaarsiiyaan qoysaska ay abaaruhu saameeyeen waxayna ugu mahadcelisay dowladda Indonesia oo xilli baahi loo qabo deeqda ay soo gaarsiiyeen dalka Beetri wasiiradda waxaan leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ilaahayna ha idinka siiyo abaalkeeda markana waxaan jeclaan lahaa deeqdii maadaama aan ka gudoonnay inaan ku wareejiyo guddiga gurmadka abaaraha qaran Sheekh Bashiir oo meesha nala joogo Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo xubinka guddiga gurmadka abaaraha ayaa wasiirka wasaaradda gargaarka kala wareegay deeqdaasi waxaana uu sheegay in tani ay ka turjumayso xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Indonesia جمعيتنا خيرية أكت iyo shacabka Indonesia iyo xukuumaddiisa dhammaan waa mahadsanyihiin runtii dareen walaaltinimo ayay maaragtay ka tarjumayaan sidoo kale wasiiraddeena qaaliga nagu waa mahadsanta ayadana dadaalka ugu jirto in dhibaatadan laga baxo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guddigii runtii diyaarinta barnaamijkan iyo soo dhaweynta ragga martida ah iyo fududeynta arrimahan la xiriira markabkan oo mucaawino noo sida waxa weli socda dadaalada loogu jiro caawinta qoysaska Soomaaliyeed ay abaaruhu ku saameeyeen gobolada dalka Soomaaliya waxaana koonfurta Muqdisho soo gaaray dadkii ugu badnaa markii ay abaaruhu si safmar ah ugu dhufatay gobolada Soomaaliya meelaha ugu badan ay dadkaasi soo gaareen ayaa kamid ah deegaanada Kirisbaale kiiloomitir 13 iyo degmada Kaxda halkaas oo ay ku haysato xaalad adag dawladda dhowr ayaa ka qayb qaatay gurmasiinta qoysaska danta yar ay abaaruhu saameeyeen waxaana kamid ah Masar Turkiga iyadoo maanta ay ku soo biirtay dawladda Indonesia هاجر عبد القادر وربعين SBC مقالة مقدشو